bismillaah waa idin salaama adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha. Een, runtii shirka magaalada Kampala waxa uu ahaa shir looga hadlayay een, xaaladda amniga dalka Soomaaliya, iyo waxa laga yeelayo ciidamada awsam ee wadamada Afrikaanka ka socda ee nabad ilaalinta u jooga dalka, oo ay haysato dhaqaale la-aan, iyadoo Maraykanka aan ognahay bisha December in uu joojinayo dhammaan taakuladii uu siinayay. Xaaladahaas ayaa looga arinsanayay. runtii shirka waxaa lagu lafaguray xaaladda amniga guud ahaan ee dalka Soomaaliya, iyo waxa ku gadaaman xaaladaas ee amniga, oo ah halis siyaasadeed ee ka taagan dalka Soomaaliya, iyadoo aan ognahay in ay dhammaadeen muddo xileedyadii hay-adihii dastuuriga ahaa ee dalka sida baarlamaanka iyo madaxtooyada in ay dhammaadeen ayaan ognahay. Marka xaaladahaas ayaa laga hadlayay. Marka shirka waxa uu aad iyo aad u lafaguray waxa ka imaan karo haddii la waayo dhaqaale lagu sii wado ciidamadan nabad ilaalinta u jooga dalka Soomaaliya. waana arrin aad iyo aad khatarteeda u leh, sida istiraatiijiyada amniga marka la akhriyo waa xaalad aad iyo aad khatar u ah waaye. arrintaasi ma ahan mid fudud oo sida dadka ay u malaynayaan ay u fududaysanayaan ma ahan, waa ay ka weyn tahay. marka shirka arrimahaasaa looga hadlayay. shirka waxaa ka dhacday arrin aad iyo aad u foolxun ayaa shirkaasi ka dhacay. arrintaasoo aad iyo aad ay u noqotay wax aad iyo aad loola yaabo, oo ugub ah, taasoo aan dhihi karo damiin siyaasadeed. xasan sheekh waxa uu noqday damiin siyaasadeed, maxaa yeelay waa ninkii ugu horeeyey oo shir caalami ah oo looga hadlayo amniga gudaha wadankiisa, iyadoo loogu hadlayo oo war-saxaafadeed la akhrinayo ku dhawaaqay oo buuqa oo af iyo labadiisa taagay ee qaylo in laga saaro qodob ka hadlayay siyaasadda gudaha Soomaaliya, isagoo leh arrinta siyaasadda waa arrin local ah, waa arrin arrimaheena gudaha waaye, annagaa taas ka arrinsanayno. No, ma ahan saas sida isaga ay la noqotay ama uu u kasay, ma ahan. sababtoo ah amniga iyo siyaasadda ma kala haraan, waa laba shay oo connected ah. marka la rabo in amni laga hadlo waa in siyaasad la keenaa, sababtoo ah amniga waxa lagu sameynaya, siyaasaddii amniga lagu sameynayay waa in la helaa. marka amniga iyo siyaasadda wax kala maarma ma ahan, waa laba shay oo related ah oo aan kala maarmin oo isku xiran waaye. marka waa lala yaabay in af iyo labadiisa uu taago oo qayliyo oo shaki ka caroodo, iyadoo communiquegii la akhrinayo inuu qayliyo oo dhaho ha laga saaro qodobka siyaasadda. waa arrin annaga gudaheena ah, annaga noo taalo. war haddii marba aad ogolaatay in laga hadlo amniga wadankaaga gudihiisa in laga hadlo, maxaa diidaya siyaasadda arrimahaaga gudahana in laga hadlo? sababtoo ah amnigaagii ayaa laga hadlooyaa. amnigii iyo siyaasaddana ma kala maarmaan, ma kala tagaan, waa laba shay oo related ah oo isku xiran. marka damiinnimadan ma aqaan aniga la taliya xumada iyo
mataqaana dhacday iyo fadeexada dhacday yani waa wax lala yaabo. taas waxaa ku cadaynayso xataa yani taliyihii ciidamada africom markii waraysiga uu bixinayay yani waa tii uu dhahay yani siyaasad yani annaga soomaaliya dhabarka ma aadinayno laakiin iyadiya yani waxaa ah istijaaheedii siyaasadeed ayaa yani soomaaliya la fahmi lahay. tan kale yani iyadaan lahayn siyaasad yani oo midaysan oo soomaaliya ay leedahay oo yani wadanka lagu hago aysan lahayn. waayo hay-adihii dastuurigaysaan hore u sheegay xiliyadii yani mandatka u ahaa ee loo doortay waa ay dhammaadeen. marka mana lahaayo yani mataqaana heshiis lagu sii joogo lama hayo ilaa iyo hadda yani wax heshiis ah oo yani in lagu joogo ama in doorasho lagu aado yani midna lama hayo. yani marka waxa waaye yani ijiid aan ku jiide yani ayay taagan tahay soomaaliya. marka waxa waaye sida aan la socno maanta yani balcada dagaal ka dhacay beledweyne gobolka hiiraan yani marka gobolka shabeellaha dhexe. marka waxa waaye waxaad moodaa in xaaladda yani khatarta laga digayay in ay soo socoto ifafaalaheedana ay muuqdaan. marka waxaan leeyahay xasan sheekh in uu laba mid uu doorto in yani dalka waa la wada leeyahay sunana waxa uu ahayd dalkan mataqaana dhaxalka keliya oo haysto waxa ay ahayd 4 sano in doorasho dhacdo. haddee 4 sano waa la dhaafay mana lahayo heshiis yani